beeralayda ugu badan ayaa aqoon kororsi loogu sameeyay deegaanka Boodle ee gobolka Gabiley sida warkaasi inoogu soo diray wariyaheena Musa Xuseen Xasan oo nooga soo warama Gabiley. Mas'uuliyiinta hay'adda Action Aid ayaa tababar ugu soo xidhay 240 beeralay ee deegaanka Boodle ee gobolka Gabiley. Beeralaydan oo la barayay habka cimilada iyo loo wajaho iyo isbeddelka ku yimaada ayaa waxa uu socday 10 caalamaale la soo dhaafay. Mas'uuliyiin ka mid ah hay'adda Action Aid isuduwaha beeraha ee gobolka Gabiley ayaa u soo xidhay ugu horreyn waxa halka ka hadlay mas'uuliyiintii ka socday hay'adda Action Aid oo faahfaahiyay inoo xidhmi doona tababar ku saabsan saamaynta cimiladu ay ku leedahay beeraha ay ku yeelatay iyo siyaabaha looga hortagi karo. Tababarkani wuxuu bilaabmay bisha 11keedii maantana waxa weyn waa ku egyahay waxa laga soo qabtay dhowr goobood oo ay ka mid yihiin waxa weyn gobolka Maroodijeex iyo gobolka Gabiley waxa ka mid ah abaarso oo laba qaybood ahayd xidhinta Taysa Ijaara iyo Boodle oo ah maanta maalintii noogu dambeysay. munaasabadani maanta waxay daaran tahay xidhitaan tababar ay waday hay'adda Action Aid ay ka waday gobolada Maroodijeex iyo Gabiley muddo 12 cisho ah. tababarku wuxuu daarnaa isbeddelka cimilada iyo saamaynta ay ku keento beeraha. waan arkaynaayo isbeddel cimiladeed waba muuqata xilligan aynu joogno maanta waa dhamaadkii June. beeraha markaad saaw eegto waad ka dareemaysaa xilligan waa xasiida waba la goosan jiray waayo waxay nagu keentay inaga in roobkii dib u dhaco. marka isbeddelka cimiladu laba noocba way noqotay, roobkii oo yaraaday iyo roobkii oo waqtigii la fili jiray uu isbeddelay. marka hay'adda Action Aid maadaama ay deegaanada gobolada Maroodijeex iyo Gabiley ay si joogta ah ula shaqeyso had iyo jeer waxay ka jawaabtaa waxyaabaha dhacaya cawaaqibka. marka tareenkani ama tababarkani wuxuu daarnaa amba uu dhacay waqtigiisii waxaana ujeedadu ahayd in dadka lagu baraarujiyo inuu jiro isbeddel cimiladeed si ay uga gaashaantaan u diyaariyaan beerihii si ay inta roobka yarada ay biyaha uga qabsadaan si ay dadka loo dareensiiyo bedel cimiladeed jiro taasina ay saameyn ku keeni doonto qaabkii noloshoodii iyo wax soo saarkiiba. ayay marka hay'addu ugu tala gashay in tababarkaasi socday 12 cisho dadka lagu wacdigeliyo. wacyigelintu ma aha oo kaliya taara inta ka soo qayb gashay laakiin waxaan ku boorinayaa inta ka faa'iideystay tababarkan in ay wacyigelinta si fidiyaan oo ay dadka kale si gaarsiiyaan. inta kadib waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland ee gobolka Gabiley oo ku dheeraaday ahmiyadda uu beeralayda u leeyahay aqoon kororsiga noocani iyo sida ay u wajahayaan cimilada waqtiyada ay wax beeristu ku habboon tahay. wasaarad ahaan waa hay'adaha sida dhow ula shaqeeya wasaaradda beeraha isla markaana muddo dheer joogay gobolkan waxqabad badanna muujiyay kana qabtay lana arki karo. iyaga marka hore taasaan uga mahadcelinahay hay'adda. mar labaad mawduucan laga hadlayo waa isbeddelka cimilada. way jirtaa waa run isbeddel cimilada dhacay. wasaaradda beeruhu mas'uul uga tahay dalka inay si dhow ula socoto xaaladda beeralayda waddanka. sidaa darteed tababarkani wuxuu daaran yahay waxyaalaha ay wasaaraddu ay ugu kuurgalaysay isbeddelka cimilada. sidaa darteed waxaa gacan ka siiyey hay'adda Action Aid. haddana waxaa la doonayaa dadka beeralayda laftigoodu mar haddii loo soo dhaweeyey sidee ay ula qabsan lahaayeen tababarka noocan iyo kuwa kale hore laynagu qabtayba inay iyaga laftigoodu ka faa'iideystaan oo ay sii fidiyaan oo inta tababarka haysata mooyaane inta kale ee beeralayda kale deegaan walba laga qabtay tababarkani waa inay deegaanka oo dhan gaarsiiyaan insha Allah bismillaahi kariim. ugu dambeyntii waxaa ka mahadnaqay isla markaana halkaa ka hadlay qaar ka mid ah beeralaydii loo qabanayay aqoon kororsiga isla markaana 10 caalamaal halkaasi uga socday. maanta haddaanu nahay reer Boodle wuxuu ku saabsanaa saamaynta cimilada isbeddeshay sidii wax looga qabsan lahaa ama looga hortagi lahaa siiba dhinaca beeraha. faa'iido badanna waanu ka helay. marka isbeddelka cimilada siyaabaha ugu fudud ee looga hortagi kara waxa weeye iyada oo dib loogu noqdo dibideennii. wuxuu sameynayaa bil buu sugayaa cagaftii baa soo socota la leeyahay. cagaftii baa soo socota sidaasuu rayskiiba kaga tegaya. kale oo uuna fahansiiyey in qofkan beeralaydihi uu beertiisa dukaanba ka dhiganayo haddii uu qofku si fiican u fikiro. sheega waa in shinnida la xusho. macallinku wuxuu nagu dardaaray in lagu noqdo sidii hore ee aynu ku dhaqmi jirnay ama shinni ha ahaato ama ha ahaato shaqo. marka barnaamijkan ay wada hay'adda Action Aid waxay nooga faa'iideeyeen
sidii aanu ula qabsan lahayn cimilada iyo waqtiga ee aan dhaqaalahayaga iyo beeristayadaba aan ugu beegi lahayn aananu soo celinno waxyaabihii hore dhaqanka dadka u ahaa sida dibida iyo in la cuno raashinkii wax soo saarkii beeraha laga soo saari jiray waa Muuse Xuseen Xasan